marka hore waxaan leenahay ilaa waa inay ilaa raajicoon ummadda Soomaaliyeed oo meesha ku dhibaatootay oo wax ku gaareen ku dhimatay ku dhaawacantay runtii waa ka kacsiinaa sidoo kale dad fara badan oo waxaa jira oo wax yeeloobay iyagana waxaan leeyahay Ilaahay boogooda hadhayo ummadda runtii mas'uuliyadda naga saaran Soomaaliya meel walba ay joogto si gaar ah waliba constituency-ga waxa waaye mas'uuliyadda naga saaran arrintaas runtii waxay arrin dhacday la yaab leh maadaama marka dawladdu ay cusub tahay oo nidaamka isbeddelkii lagu jiray waxyaabo fara badan oo waxaas ka jira la dareemi karo oo culays keeni kara laakiin arrintaas runtii waxay naga yaabisay waqtiga ay qaadatay iyo dhibaatooyinka la maray iyo culaysyada meesha lagu maray iyo dadku sida ay dareemeen iyo argagax magaalada ka dhacay waxaas oo dhan waxay noqdeen hab runtii loo baahan yahay in laga hadlo waxaana go'aansanay inaan arrintaan markii la soo afjaro kadib aan ka fariisanno aan ka hadalno discussion ka galno kadibna fikradaha nooga aadan insha Allah tacaala oo soo bandhigi doonaa haddii la yiraahdo وطاي مرة بدنا واحد بيسوي عليي للدجالن كان شباب كنا وسول لحد سنة يعني المجال ده حديث كده قال ما يعني محيطها الحساب تقدين على البرلمان كهذا أمنك والله أرتل للدجالن كان الشباب كوحوا استراتيجية وبهاي هاي الشباب كحلو بهاي إن عدود غلط دررو سواء كانوا حلو بهاي ولا هذا اللي في هدية استراتيجية لو بقول سكروا أما الله بدو ولا سكوضر كاستراتيجية ده دولة كسوقي نواعي برلمان كله executive كشغل كوالس كله baarmaan guddiyo kooban guddiyadaasna waxay sameeyaan oo ay daba galaan shaqada xukuumadda marka waxaan leenahay shaqada kooxda xukuumadda iskale laakiin aniga mustafahaan ka fikir ahaan anoo waay arag runtii oo siyaasadda muddo soo jooga waxaan aaminsanahay shabaabkan u baahan yahay istaraatiijiyo cusub oo lagula diriro haddii loo baahan yahay dalka Soomaaliya laga xoreeyo nimankaas